إما هو بنشتل دليبة وحرق جدها waay markii baad walaaliyo door dad jaarkay wax baad u soo yaacay hay markaan inay badbaadiyay marna waxay tiri muxuu ahaa inaan xaraan ku haysto yani xaraan buu kula seexanay buurta wallahi markaan tagay horta buurta markaan tagay waan joogi la subaxnimadka habeenkii gobolka ay dhacay ilaa 8 ilaa 9 baan waay markii baan siray ma iska tuurtid baday mar nafta ku dhaaftay markii qaar ba xataa wallahi ana waxba aan cuni jirno toddobaad ama laba toddobaad iska socon jiro dharka iska xidhnaan jiro iska bedeli jiray oo lagu bari jiray warkaali jirka meero intaan walaalana bi qasbi jirtay xoog u jirka lagu meeri jiro liitir dharka ka bedela Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada daawadayaal halkan waa fagaaraha Fahad Kaariye waraysigan waxaad la socotiin aniga Cabdiraxmaan Gooda garabkayga waxa fadhiya Maxamed oo ah wiilka caawina la wadaagi doono sheekadiisa jacayl taasoo dhex martay isaga iyo inay isjeclaayeen taasoo gaadhay heer ilaa guur laakiin ay familiyadu isku diideen Maxamed bar soo dhaw marka hore wandhow walaalo Cabdiraxmaan umada isbar magacaaga saddexan halkaad ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho magacaaga saddexan magacayga saddexan Maxamed Abdiqani Aadan way inanta isjeclaydeen amba guurkeedin dhex maray magaceeda Amir Abdirashiid balla way Amir halka isku barateen Maxamedow wallahi Amir waxaan isku barano walaal Ethiopia magaaladee meel la dhaho Bare xilligaad isbarateen Maxamed waxa jira laba qof oo jacaylkoodu u hirgalo amba u baaqdo waxa jira xusuus ay leeyihiin oo ah xilliga isbarteen jawigu sidoo ahaa baridinku markii ugu horeysay is aragtaan Amira saad isku barateen wallahi walaalkay magaaladan joogto magaalo isku kooban bay ahayd daadu wad garanaysaa iskuul iyo waxaan isku nimid way dadkuna is wada garanay magaalada maadaama yartan magaalo saa weyn ahayn marka adu inanta galaasyada kamid ah iskuulka dhiganaysa iskuul baahide way dadna sidii waan isku barano marka break ama musaacir la soo baxo way mudaynta lag bisooda xiriirkiina wallahi walaal wuxuu socday anu meesha ayrkii baan iskuulka ka bilaabay fasalka sideed hay adula fontri ilaa galaaska saddexaad ee dugsiga sare way isjeclaydeen intaas xiriir baad idin socday adu galaaska saddexaad baan iskuursanay inta ka horeyso dhin xiriir baad inaga dhaxay inta xiriirku idin socday kadib maxaa dhacay wallahi walaalkay waa garanaysaa guur baa dhacay Soomaa guur baa dhacay oo nolosha ku midowday marka guurkiina ka bacdi maxaa dhacay wallahi guurkan ka bacdi horta inanta hooyadeed la noolayd way marka imika dadku qabiilkeed xiisayeen maagtay qofka cidii yahay qoladu iyo xanaas marka inantuna adu isku reer baan ahay hadii si loo eego isku deegaan baa ka soo jeedeen deegaan isku deegaan garowan ka soo jeedaa iyaduna Puntland ka soo jeedaa ayadana waa halkan la saaniyo dhanka ka soo jeedaa marka labadeenaba laba hablood oo saaqana kala dhalay laba hablood halkan ka soo jeedaa idin dhalay Soomaaliland oo labadeenaba abtibaan loo ahaa ayadana abtibaan la yahay kulley qofka markaad la sheekaysanayso qabiilka ma siinaysid focus aad u weyn maagtay rabitaanka qofka sidoo adiga aad u aragtaa ama naftaada qofka raalli uga tahay bad qofka aad u soo dhawaysanaysaa marka adu inanta hooyadeed baa ma garanay wallahi adiira diiday oo inan hooyadeed ma meherisa maagtay marka meherkii bay adu beenaysay tiri yani meherku wax jira ma aha adiga marka aad ismehersateen bay iskursateen yaa ku hibeeyay inanta aabeed ku hibeeyay oo aabahii iyo inanta aabeed doonayso xataa way iskarteen way iskaranayaan aabaheed iyo aabahay way iskarteen oo odayga ahaa inanta dhalay Abdirashiid baan afkiisa ugu yiri aabaha koraabal bigu leeyahay badbaadiyo wax noocaas ugu yiri marka inana aabeed baa bixiyo garanaysaa waxa jirta kor hadii aabeed ku siiyay iyada hooyadeed xaqay caqabad kaaga noqotay wallahi walaalkay wata garan waayba marka xataa anu waxay ku jireen mar waxay tiri yani ninkan in la yaqaan ma aha yani qabiilkiigan ka dhashay xataa damacdeen beenayso aad waxyaabo badan bay sameeyay sida inan garanaysaa hooyadeed ku socoshanayso hooyadeed garanaysaa kulli waa hooyo Soomaaliyeed hooyo walba folowgeeda maraysa awoodkeeda ku socoshanaysa ama wado wanaagsan noqoto ama wado xun noqoto marka aad xaaladda markaan ku jiray imanka
laba xaaladood bay kala imanka maxamedow Ah. soomaalidu waxaa jirta dhaqan la yidhaha in qofku maaragtay inanka iyo inanta sax uu midun jacaylku ku horeeyo sax waxaa la yidhaha inta badan amba inanku jacaylku ku horeeya sax amba inanta sax jacaylku ma adigu kugu horreeyey mise iyadu ku horreeyey wallaahi walaalkay horta garba samayn baan ahay waay intaan jecelin lahayd bay jeclay waay dee ma dhihi karo way iga badantahay waan ka badna ma dhihi karo waay waayo marba hadduu meesha guur yimid Hmm. qofka dee rabitaanka dee yacni waa halka ugu dambeysa qofka kugu soo istaaga moogta waay dee guurba haddii nantiba ku tiraba dee waan kula wadaagaya dee nolol mustaqbal dee futurekeediiba way ku siisay saasay ku dhantay waay waxaad ii sheegtay amba sheekadaada aad igula soo wadaagtay in lagu xidhay yaa ku xidhay wallaahi walaalkay dee inanta hooyadeed baa dacwootay hay oo tiri dee inantii dee adu dhowr dee weji bay dee samayso waxaa tiri inankii inantan dee yacni mar keliyii baa lagala baxayo waa dee suuqgeyn baa dee inanta lagu waday waay marna waxay tiri dee muxuu ahaa inanta xaaraan buu ku haysto dee yacni xaaraan buu kula seexanayay waay oo inanteeda dee inan layska meherna dee muu jirin waay Ya. waay xaaraan buu ku mehersaday haa haye marka wallaahi wakaa walaal waa dee adu waad garanaysaa hooyada awdkeeda doonaysa waddo walba maraysa marka adiga lagu xidhay mise ashaad xidhneed wallaahi anuu malaha hal cishaan xirnaa Hal cishaan. saamaa seexnaynaa hargeysaad ku xidhneed marka hargeysaan ku xidhnaa hargeysaan isoo guursanay wadaa xadhigaaga ka bacdi Ah. inantii miyaa lagaaga haystay mise weli idinkoo isqaba wada joogtay wallaahi walaa horta dee sheekada dambi baaris bay gasho dee adu jaalashan iyo waxaan saldhigan dhexan isla dhaafnay waay ilaa CID-da u dhadhacday waay oo dee anuu marka Ethiopia ka yimid baa timo weyn baan lahaa waay marka adu lahjadeedana waad garanaysaa qofku markuu magaalada u dhashay mar kalena dee isku lahjad maaha intaanad somaliland imanaya lahjadaadu way xagga etoobiya hadda Ethiopian ku badnaa dee ilaa Okay, waxbarashadeedii okay. waa marka marka luuqadii baa adu dee yara dhadhamiyey haye oo marka inaan halkan ahayn bay ogaadeen haye ahaate laakiin wallaahi dee horta dee marka sharciga la dhaho ha dadka u shaqeynaya wallaahi waa dad aad u wanaagsan oo dee aanan garanayn yacni qabiil iyo dee reer toon aan u eegin sax oo siduu caadiga dee ay tahay sax bay dadka ugu shaqeeyaan Ah. waan u mahad celinaya kule dee somaliland see u dhantay marka inantii miyaad wada joogteen mise waa yacni hooyadeed baa ka haysatay inanta dee horta subaxyada kamid baa naloo yimid askar baa noo timid haye gurigan loo baana la kaxeeyo marka askarti kule dee marka askarku timaadana kule waxun baa jira waay marka warqad waaranay wadatay adu saldhiga dhexanimid saldhiga dhexa baaritaan la sameeyey saldhiga dhexe haddana tiri dee waxba marka dee markaaba baaritaanka la sameeyey Ha. taliya muuse joogay waa aad baan u salaamaya halkan haye ka salaamaya haye muxuu ahaa asagaa dee yacni kiiskeeni hayo markaa saldhiga haystay waay waraysigana asagaa iga qaaday marka wuxuu ogaaday dee qofka labada qof markuu been sheegay waad garanaysaa iyo marka waay marka ma aduu khalayaa lagu soo xidhay mise adigii inanta labadeena waan wada soconay labadiina waa wada socotay haa labadiina waa wada idin wada xidhay marka mise hooyadeed baa ka haysatay may labadeena waa markaa waan wada xirnay dee inanta ma xirnay dibadda iska joogtay dee anigu xarig bugumaan talagelin bu xarig ba ma hayno ilan ayadu way soo dacwoto weli wixii baaris buu gelayay waay marka kabacdi waa inantii hooyadeed baa ka haysatay may ka xaysan Ah, saldhigii dhexe bay tiri yacni ee xashaa ka dhacday bay tiri oo dee yacni qofku markuu wax doonayo waad garanaysaa sharcigana dee yacni sida saxda ah marka loo raaco qofka dee garta laa la siiyaa moogta sharcigana dee inaan anu saxanay buu ogaaday goorma inantu kaa tagto la ka haystay inanta saldhigii dhexan ka tagnay bay goortan idinku aad kala tagteen ee iyadu tagtay aad caadi u kala tagteen goormee wallaahi isla dee waqtigaasuma ahayd mise waqti badan ka bacdi wallaahi adu isla waqtigaadu maalintaan xirnaa maalintii ka dambeysay bade adu hooyadeed baa ka haysatay haa adigu inan baa isjeclaydeen way isgursateen Sax. qofka isjeclaydeen markii lagaa ka haystay sidaad noqotay wallaahi walaalkay dee kule waad garanaysaa qofaad jeceshay adduunkaagiya noloshaadiya yacni aadan lahayn dee yacni deyr kale ama qof kalo dee waay marka wallaahi dee xaalado badan baa soo maray oo dee in halkan lagu soo koobi karin heer dee kolley adu CID xataa markaan tagno kuu soo dhaafay sheekada ah CID da tiri hadda baarisa lagu sameeyay CID baan tagnay xitaa anu waxaan garan waayay dee hooyadii ciday tahay waay adiga hooyadaa hooyadii ciday tahay waay yaa sababtood hooyadaa cidatay aad u garan weyday dee walaal Maxay ahayd? Ethiopian ku barbaaro ah Ethiopian dee macanu keegan caadigaanan kor dee yacni hoosaan u daadegi karin waay dusha guud ma ka garanaya adiga markaa halkan markaad joogtay hawshaad halkan ka socotay Sax. waalidkaaga adeeradaabaa joogay halkan mise abtiyaalada abtiyaaladii baa jooga halkan aniga abtiyaaladii baa halkan Ah. joogay haa adu markaad xidhnayd aad hawshaas kugu socotay haddana aad waalidka hooyada
maartay atri reeraha ay Soomaaliland ka tahay baan garan waayay صح dhibaato noocay ku ah والله ولا لا ورت دي ولا يابay waa runta fiican oo ha marka adu dee waad garanaysaa qofku magaaladu ku dhasho hadba siday timbu dee ula janqaadaa moogta waa hargeysa naftirkeeda xataa dee maanta cid ku dhaqanta horta qabiil male oo dadku waa garba siman weeyaan oo cid walba ku nool dee haddana muhiimaddu way wanaagsantahay dee yacni adigu reerkaa tahay iyo hooyada reerkii tahay inaad barato adoona ku dhaqmayn dee ilaahay wuxuu yidhi tacaaruf uu yidhi moogta way maxamedow Ah. inantaas jeclaydeen duruufaynta lag baa soo wada martay wallaahi walaa marxalad badan baa soo wada marnay xitaa waxaa dhacdaa in guurkan xataa nimanka degdega maan doonayn Hey. oo aduu waxaa dhacday markii hooyo iyo aduu reerkii baa baxay Hey. oo dee qabanqaabi wax ku jiray Hey. marka waxaan ku uri borta diyaaranku dhinaca u dhaco Hey. muxuu ahaa anigana foorkan aan dhamaysto ilin tiri baa markaa ku jiray galaas tiri baan ku jira Klaaska saddexaad ee dugsiga sare ku jirta way aan foorka dhamaystaan ku uri hay si wanaagsanna dee waan kugu soo gogol fariisanaya baan ku uri reerka labada reer baa wada hadlaya aduu way ka dhaga adagto way diido wadaadii doonaysay wax noocaas markaa barasharka xagga hooyada binanta ka saarnaa sabab hooyada no wallaahi barasharka dee saarnaa aduu si wax ula dhaqmi jirtay qof aan dhalan oo kale dee sax marka inana waad garanaysaa markii dee gurigeeda ka cararayso koley siyaabo badan baa ku kalifaya way iyada iyo hooyadeed maxamedow waxa dhex maray sax kolley dee waa laba qof oo isku waalida haa aduu sababtad ka ogaatay maxay tahay in hooyadeed waxa dhex wallaahi horta dee wuxuu noola dhaqmi jirtay seed ka ogaatay wallaahi walaa nabaro badan bay tustay oo jirkeeda jirkeeda ku yaala haa oo Sax. dab baa xataa ka mid ah dab qabadsiiso gubgubtay xitaa ilbi xataa ku dhufato dikoor nairobi baa la geeyey waan malaynaya sax marka ayaduna dee kule naf uma inuu ogeedo in mustaqbalkeeda dhisato bay doonaysaa way se sheekadaada igula soo waraagtay sax waxaa jirta inaad laba mar inantaa markaad kala tagteen sax aad doontay aduu shakhsiyan inaad laba mar aad nafta isdhaafiso amba aad isdisho ma haa jirtay way jirtaa way sidee labada jeer dee labada jeer marna adu waxaan jooga xaafad halkaa inaanan walaalaniman la joogo way qandahaartaasoo aduu subax baan xaafadda ka baxo dee maan garanayn qofna waad garanaysaa xaaladiisa xaaladda kugu adkay xaaladan ku jira markaa dee marxaladda maanta halka lagu soo koobi kara ma aha way oo dee qof yacni ogaalkiisa jooga maan ahayn oo qof wax taban aan ahaa hay dhinacna dee waxaas laa cunsurinimo dee lagu geystay oo dee maadaama raabtiga ku dhex nool way baa inantiina dee hooyad laga raacay adoo dee yacni sharciga uu ku raaciyey marka adigu subaxa maxaa kugu dhacay wallaahi subaxa aduu habeenimidkeeda ilaa subaxii waan ka baxay xaafadda subax baad xaafadda ka baxday kumaan soo noqonaa buur baan dhakaad u saarnaa Waay. meel dee kuwan caradan dee iskurweyn ka qaataan dee buurtay ahayd buurtaad aa tibeed waxay qandahaar bay ku taalaaba dee waa garanaya marka kuwan baa isku rogoynka ciidda kasoo guraan kasoo gurta haa hay marka meeshu meel dheer weeyaa dee ilaa waxay qodantay intayn lag dee dhowr fiid weeyaano marka maxaa doontay marka adu buurta sidan subaxii dhan u joogay adu gobolka igu dhacay way dee tan waad garanaysaa qof dee iska xaaladaysanoo waxaan sidhaba dee maxaabad kasii noolaanba dee way rubadad qofkii aad nolosha la wadaagisay ood jeclayd way muxuu ahaa adu dood garanaysaa ciriiri ba dareemaysaa dee hay marka wallaahi marxaladda horta dee marka buurtii marka tagtay maxaa dhacay buurta wallaahi markaan tegey horta dee buurta markaan tegey waan joogay ilaa subaxnimadka habeenkii gobolka ay dhacay ilaa 8 ilaa 9 baan way markii baan sidee dee maaba iska buurta tuur. ma iska tuurtid badaa Hay, mar hay. naftaa ku dhaafta waay marka aad stress ka tuur goormu meyrkaagu soo noqday mise dad baa ku arkay wallaahi anoo iska tuuraya oo ku tala jiraa Ah. way soo garaacday hooyo way soo garaacday walaala la hadasho ku tirada ninka talaafiga ma qabanaya luwac hooyadaa baa kusoo garaa way Okay. soo garaacday marka way nimka xagga qurbaha ku noqday hay oo nolomay joogin hay tanaad hooyo dee damacdeen dee yani dee niyadiisa waa inaad garanaysaa oo dee way uudkeeda dee yani habba sida dee ku badbaadsan kartay wadadeeda maraysaa way markaas koobaadeed hooya yani dee adoo nafta isdhaafay Ah. hooya kula soo hadashay Haa. marka labaadna see ku dhacday wallaahi marka labaad aduu subax bay ahaydoo quraac baa laga keenay marka walaala quraacii keento waa iga baxday okay aduu xarig guriga yaalay waxbaan xagga sare ku soo xirtay waxaa islaaba dee xarigaaba waxaweeyaan isugu soo noqon way deedna aduu dee inantan walaalahanay baa ilaahay markiiba dee aduu albaabkan ima xidhnayne Ah. bay degdegay kusoo gashay adoo xariggii isku daldali rabay walaala soo gashay dee may waaban isdeldelayba waa xariggii dee haa way markiiba aduu walaalo iyo dhowr dee dad jaarkay waxba aduu soo yaacay hay oo marka anigay badbaadiyey way markaas waxaa kan dhakhtarkan aadna dee horta sheekadaadu maxamedow Sax.
kolay dee qof aan miirkiisu joogin baad ahayd intaas dee ogaalka doo garanaysaa oo dee xaalado maaragtay duruuf dee yacni ay ku gadaaman yihiin laakiin haddana dad muslimiin aynu nahay wallaahi waa runaa iimaanku wax qaaliya weeyaan iimaanku wax qaaliya labadaa jeer yacni xanuunka jacaylkaa ku hayay iyo dhibaatadaa kusoo martay marna ma xasuusan inay maaragtay nolol kaa dambeyso oo intaba waxa kaala weyneed xanuunkan ku hayay sooma wallaahi marxaladda marka aad ku jirtid unbaa dee wax walba go'aamin karta moogta marka dee I hope maan garanayn halka aan joogo iyo waxa aan sameynayo mararka qaar ba xataa wallahi aanan waxba aanan cuni jirin toddobaad ama 2 toddobaad iska socon jiro dharka iska xidhnaan jirin iska bedeli jirin oo lagu bari jiray warkaali jirka meero intaan walaalana bay qasbi jirtay xoog u jirka lagu meeri jiro liitir dharka ka bedela sax arintan inta ugu badan waxa ku jira family-kaaga abtiga abtiyaalada waxaana sheegtay inaad ka soo jeedo Puntland marna ma soo dhex galeen family-gaaga xaggaas arintaada wallaahi doorta adu arinka dee meherkii wixii markuu u dhamaaday wixii ka dambeeyay may anu la wadaagin badee lama wadaagin badee soo xujraan markay weydiiyeen waan wada joognaa ma dhihi jiray seenan dee aanan eedade abtiyaal iyo reerkeenan u fuulin way markasta ila soo hadlayaan dee yani waxay moodaan dadka qaar dadka iminka dee Somaliland ku dhex nool boqolkiiba 90 dadka waxay moodaan dee yani dadka lagu cunsuriyay moogta ama abtiyaal loo ahaada ama qof dee marti ku aad ha noqday marka qofka ku dhex nool unbaa garan kara Soomaa marxaladda marka aad ka jirto dee marka igama aaminka mararka qaar marka Itoobiya u baxo sida ugu dhex noosha bay ugu dhaameen ku oran yani waa dee hubanti iyo wixii wad garanaysaa bari marka wallaahi dee nin raabtii ku dhex jiraan oo maxamed waxaa jira dad badan oo qaba inaan damaanta Somaliland iyo maaragtay waxyaabo dhacay dad badan waxaa jira aaminsan in halkan haddii la yimaado la isku cunsuriyo maanta hadaa Puntland jooga abti baa lagu yeeyay waxaa jira dad badan oo abtiyo waxba lahayn laakiin iyaguna deegaanada jooga Hargeysa iyo deegaanada kale Somaliland markan jacaylkaaga ka baxno taadu ma aragtay mise ma qabtaa wallaahi ma qabo anu mismali Somaliland si u dhantay qof jooga wax lagu yeelayaa ama lagu cunsuriyeenaya ma jirto way jiraan dad iska dee magaalo walba laga yeelay qof iska yar dee doqonade yani hadal kugu tuurade dadku dee raguna way kaftamaan oo dee kaftan ku cayb maamulta laakiin boqolkiiba 90 wallaahi wadada aad u wanaagsan dee yani la noolaan karo aanan dee wax kasta dhacaana dee ugu xad gudbayn maanta yani waxaad caawo dhan nooga sheekaysay in aad soo martay qisooyin badan oo waliba aanad xitaa qaar badan aanad halkan kusoo koobi karin oo gadaamo jacaylkaaga maanta inantii intaasoo dhibaat soo martay xagee joogtaa weli warbixin ma ka haysaa wallaahi walaal waan la socdaa iminka Mareykanka ka socotaa Mareykanka joogtaa Mareykanka iminka may dhawaan iminka caafimaad buu dheganto ayuu tegaysaa marka aniga dee hooyo igu tiri ducay habaar dee labada mid qaado inantaa iyo hooyada dee farax ka qaad oo dee haddii xataa iminka lagu soo celiyo weyn istaynin dee meesha haddana buuq halkan buu kasii bilaabmaya moogta iyada markaa aad intaas dhibaato maraysa marna ma kula soo hadasha wallaahi way soo xiriirtay aadaha si aad weliba iyadoo si qarsoodiya markaa mise may waa dee taleefonkii baa laga qaaday inantii waad garanaysaa dee culays baa la saaray barashar baa la saaray rag baa ilaalinayay oo dee waad garanaysaa dee wixina waa inanoo marba taleefon yar buu qof dee inan u timaadee wax iga soo garaacaysa qisadaadan inta ugu badan adiga inanta jacaylkeeda dhexeeya inta ugu badan yani iyaduna may goyn xiriirkaaga adiguna maad goyn laakiin culays family baa jiray ma jiraan dad badan oo maanta dhibaatadaa qaba maxamedow wallaahi horta dee marxalad kastoo dhacdaa way jiraan dad ilamada weer oo la helayaa dad iga sii daran baa la waxtaa in la helaa laga yaabaa aniga tiyadaba inay sahal noqotoba taadu sahal noqoto inkastoona laima taadu sahal weeye nin 2 jeer dee dil ka badbaadi dee waa qof dhintay dee imaga dee dhimashuun dee yani hadda inta aad rabtay inaad nolosha islaafso aad marna doonaysa inaad isdaldasho marna aad doonaysa inaad buur iska tuurto labaduba waxa dee alla subxaana watacaala laga magan galo markaad maanta xasuusato adoo miyirkaaga qabo aan maanta culays jacayl ku saarnayn se ninka caawna hor fadhiyaa maxaa dareentaa wallaahi alxamdulilah noorta iimaanku wax qaali weeyaan aduu xaafadda qur-aan baa lay saaray aduu muxuu ahaa masaajidkan ku xirmay
shanteeda waqti baan tukanayay wallahi waa iska qabow maasha Allah culayskii barasharkii wixii saarnaa adu wax 2 bilood gaarayaba dee waayo su-aasha ugu dambeysay gabagabada waraysigeena maanta inantii adintaasoo howlaysa soo marteen kulle muuqaalkaagan way arkaysaa hadii Allah subxaana watacaala u gaarsiiyo wax fariinood halkan maanta uga diraysaa ma jirta wallahi gabagabadii waa si wanaagsan waan horta dee waxaan jeclaynayn dee yani waxaasoo dhan u sameynayay si ayadu ay xornimo ugu noolaato ana dee loo dhibaatayn culayskan iyo barasharkan saaran ugu baxdo qof xor noqto dee culayska hooyadeed ka dulqaadan muhiimadu dee dadku way isguursan calafku halkiisa laakiin qofkaago dee farxsan dee maanta wax loo dhigan jirin Soomaaliya marka maanta wax fariinood u diraysaa ma jirta wallahi dee kulley waxaan dhihi lahaa dee waalidiinta horta dee dadku way isjeclaadaan dhalinyarta dee qabiilna waxbaa dee qof laguma go'aamiyo qofku dee meel walba kasoo jeedi karaa laakiin qofka dhaqankiisa iyo dee adu tarbiyada akhlaaqda waxyaabo badan baa laga eega diiniyan dee sida diintay sheegayso dee marka inaan dee dhalinyarta la isku diidin oo dee aanan colaad dhex dhigin dee la kala guursanaya marka Soomaali kulley dad walaalo weeyaan way wada dhaleen marka daarood hawiye waxba dii la soo qaado meel qura lagu wada fadhiyaa marka Soomaaliya uliyo dirkeed marka inaan la kala qaadin dadkii oo dee dhalinyarta dee weyn wanaagsantahay dee cilaaqaadka dee xiriirka labada dhinac dee la iska guursanay waayo waxa imanaya in shar awd wax lahaatee inaan Muqdisho joogto inaan Hargeysa joogo markuu guursado dee waxa noqonaysaa dee waa qaran soo duldegan dee okay marka waxa leedahay dhalinyarta dee dhalinyartuna dee isku calaf furnaanayaan marka qofkan waxay meelo badan baa laga eegaa option badan halka qabiilkiisa Soomaalidu ka eegaan qofkan qof wax dhaqan kara ma qof dan yani shaqaysan kara ma qof inanti wax tar kara ma dee yani ilan gabadha marka aad guursanayso aad ugu sii gogol xaarataa dee wixii kaaga baahanta agab dee aad siisaa diiniyan dee saaxiibayaal halkan waa fagaaraha Fahad Kaariye anigoo Cabdiraxmaan Goodina waraysigan wada la socodsiinayay halkan waxaad kala socon doontaan waraysiyo sheekooyin dhacdo iyo riwaayado sidoo kale waxaan idin la wadaagaynaa qofkii haya sheeko noloshiisa ku saabsan oo waliba uu doonayo inuu bulshada la soo wadaago markaste halkan hal noogu yimaado si aanu la wadaagno bulshada markaste iyo goor kaste ku xidhnaada fagaaraha Fahad Kaariye